dawladu ku tiirsan yahay waynu meel magaranaysa waynu waxan uu qofkan xaq u dagaamaya oo qofka si xun loo galo laayay yacni waxyaalo badan moogto jamaad iska samaysan ma waxana waa mashruuc yaashin waxay doonayaan lacagta in la soo ururiyo baato laga soo ururiyo dhaco badaysi halka laga soo ururiyo meel kalena ma waa baato laga asaasay wax gebigeeda SSC ma waa inagoo maanta dawladda Soomaaliland baato laga asaasay yani ceeb haateen meel bin gaar lahay ilaahay baan ku dhaashay maya meel bin gaarnay waa iska waxaan la galay iska wax waaran bay ahaan lahayd moogta marka reerkan waa reer waalin weeyaan waa reer aniga waxaan manayaa family-gani maskaxdooda caadi ma normal ma waayo waxay ku dagaalamayaan iyo wax kala toona ma kala faansanaba reerkan ma dhama reerkan ma dhama reerkan waa in sida ugu dhaqsaha badan iniyo wali dhaqaalahana meenu yeelan laakiin waxay wacnaan lahayd iyadoo in kastoo dhul baahantaa inta la qabto haddii aan isleeyahay xagga caafimaad iyo fijeed iyo waxyaalaha loo diro laakiin dee nasiib daro xagga caafimaadka dhaqaalihiin imaan dee wali magaranayno dee haddii laga soo leeyay magaranaysa haddii la 80 kun oo qofteen mar wada qabano aynu caafimaad hubaynu ku qaban karnaa laakiin xagga dhaqaalihi aynu awoodin dee irbadii lagu midiyo wixii la dhacay taas inaan magaranaysa inaan wali ka bixi karin inta fiican wali aka meenu gaari America من دمات 80 kun oo qof soo qabtaan aan markii check up wada marin karay iska dacay cid kale heerkan waxa waalay habeed baa waashay habeed baashan habeed geelan cudur baa laga qaaday baalay iyo kaadida geela sida isku lahaayeen ilaahay qaybtii waxba meesha ka dhacay heerkan waa loosin war soo qabso jeeyo soo qabso adiguna khudbadaada akhriso midda kale niyo irsaaqo anigu irsaaq midda laakiin kula yaabaniyo irsaaqo horta niyo inkoo qof iska hantaa u caseeyo soo qabsano maanta waxay ka taatacay inuu miin horta waxaan idin miina ka doodi karin ya in iyagu wada arkeen hadii nimankan iyagu inkastoo daynagu aynu dawladna maaga inuu ogolay laakiin hadii ma